So maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay maxaa la dhahaa intermittent fasting ama soonka la soomo oo hilibka la iskaga rido. So maalin hore videoga ka sheekeynay maxaa la dhahaa insulinka waxaa soo qaaday maxaa la dhahaa intermittent fasting ama sida hilibka la iskaga rido. So masaajid badan ay soo gaaray dadka dhahayaan faahfaahin dheerna ka bixisay jeclaan laheen marka maanta ayaa isku dayayna macnaheedu faa'iido jirka uu leeyahay iyo maxaa la dhahaa sida hilibka la iskaga rido iyo sida u shaqeynaa faahfaahin yar ka bixiyo. Horta intermittent fasting waxaa waaye soonkaasoo laga soomayo cuntada waxa kaloriga leh oo lagu ogol yahay inaad cabtid waxa kaloriga lahayn sida biyaha cad, kafeega, sokor la'aanta ah, maxaa kale shaaha sokor la'aanta wax kalori lahayn dhanaade iyo inaad cabtid maxaa la dhahaa biyaha cad saasheeyo. So marka intermittent fasting faa'iidooyin badan ayuu leeyahay markii laga soo tago inuu hilib kaarido ama inaad isku cataysid sababtoo ah jirka bini'aadanka marka cunto aad ka goodid jirkaaga wuxuu sameynayaa jawaab ayuu bixinayaa jawaabtaas marka jirka bini'aadanka uu bedelaa. Midda kalena waxay tahay diinteena sana faraysa waa inaad soomna ramadaanka oo kale isniinta iyo maxaa la dhahaa sunnada rasuulka say ahayd isniinta iyo khamiista. So faa'iidooyin badan ayaa ku jiro sababtoo ah science-ka hadda dhow ayay ogaadeen laakiin diinteena waxayna fartay inaan soomno 1400 ka hor. So soonka cibaado kaliya ma aha hataa caafimaad gooni uu leeyahay. So marka website-kan ayaa badan akhriyaa qofkii raba linkiga ayaa description ka dhigi doonaa. Waa website zaid wanaagsan free-na ah wax lacag la iska qaadin laakiin premium ayuu leeyahay hadaa rabtid waxyaalaha gooniga ka baran kartid. So midda koowaad hadaa u gudubna intermittent fasting wuxuu caawiyaa uuna bedelaa hormoonada jirka cellskeena waxyaalo badan ayuu intermittent fasting naga bedelaa. Labo intermittent fasting wuxuu naga caawiyaa in hilib jirkeena ka dhaco ama baruur ka dhacdo belly fat ka khaasatan baruurta caloosha ku taalo kale intermittent fasting inuu kaarido sababtoo ah markaa soontid jirkaaga waqti badan ayuu cunto go'aanayaa markuu energy waayo jirkana hilibka xareysnaay baruurta caloosha meelaha isku xareysnayd ayuu energy isticmaalaya. So intermittent fasting uuna caawiyaa hilibka inuu naga dhaco. Intermittent fasting wuxuu maxaa la dhahaa yareeyaa insulinka daraadhow markaa video ka hadla insulin ayaa mention gareeyay dad badanaa marka insulinka waxay dhaheen insulinka muxuu ahaa insulinka waxaa waaye hormoonkaas jirkeena ku jira hormoonkaas waxaa waaye waa hormoonka baruurta xareeya ama hilibka xareeya. Hormoonkaas markaa tusaale ahaan carbohydrate badan cunno kale kor ayuu aadayaa zaid ayuu maxaa Allah u kordhaa marka hormoonkaas jirka wuxuu ogolaanaa inuu baruurta xareeyo si energy mar kale ugu isticmaalo. So intermittent fasting-ka wuu yareeyaa diabetes-kan wuu yareeyaa intermittent fasting-ka. So hadaa sokor wax qabtid intermittent fasting zaid ayuu ku wanaagsan isku day. Midda afraad waxaa waaye stress-ka ayuu yareeyaa sababtoo ah markaa soomantahay jirkaaga waxaa waaye shaqo kale ayuu ku jira cuntada markuu ku jiro dheefshiid ayuu ku jira jirkaaga shaqooyin badan ayaa ka socota laakiin markaa soomantahay jirkaaga wixii shaqo uu ku jira ma ku jiro marka busygiisu ama stress-kana jirkaaga uu ka yaraanaya. Midda shanaad ah oo midda ugu dambeysana intermittent fasting waxaa waaye maxaa la dhahaa wadnaha caafimaadka wadnaha ayuu zaid ugu wanaagsan yahay sababtoo ah markaa soomantahay jirkaaga saa sheegayba waxyaalo badan uu qaban jiray markuu cuntada ku jirtay ayuu qabanaynin. So marka intermittent fasting zaid ayuu ugu wanaagsan yahay. Halkan sidii lagu sheegayo kale wadnaha cudurrada wadnaha ku dhaca waxaa waaye midka ugu horeeya hadda dunida dad badan ayaa cudurrada wadnaha ku dhacaan u dhintaan dhibaatooyin badan ayuu keenaa. So intermittent fasting zaid ayuu kaga caawinayaa. So haddaa sokor iyo wax qabtid isku day inaad cuntada ka go'did waqti gooni ah maxaa la dhahaa habeenkii oo kale lixda inaad cunto ka go'did ilaa subaxi markaa soo kacid koob kafee qaraar cabtid ilaa maxaa la 12 ilaa xataa hadda labada ilaa kowda meelahaas kasii dhigan karto kasii fiican tahay. So markaa waxaa muhiim ah maalinkii markaa soonkaaga furaysid inaad cuntadii maalinta loogu talagalay jirkaaga haddii kale waxaa waa dhibaato ayaa jirkaaga u geysanaysa cuntada sababtoo waqtiga haystid aad cuntada cunayso waa ilaa 6 saac 8 saacadood. So 8 saacadood cuntada loogu talagalo idil inaad ku cuntid way adag tahay. So marka waxaa la rabaa inaad qasabto jirka aad cuntid xoog ku cuntid. Intaas ayaa waxaa rabaa inaan ila wadaago haddaa website-ka rabtid insha Allah description-ka dhigi doonaa. Channel-ka haddaa ku cusubtahay waxaa la sameeyaa waa taqaanaa subscribe like asxaabta gaarsi peace out.